geesta kalena madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici intii uu joogay magaalada Berbera waxa uu booqday masaajidka Sheekh Isxaaq oo kamid ah masaajidada ugu taariikhda weyn ee ku yaala bartamaha magaalada Berbera kaasi oo ay dib u habeen iyo dib u dhis ku sameeyaan maamulka dawladda hoose iyo dekedda caalamiga ah ee Berbera waxaana halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale mariyaha guud ee dekedda Berbera injineer Cali Cumar Maxamed Cali Horhor oo tilmaamay inay iska kaashan doonaan dhismaha masaajidkaasi isla markaana ay ka dhigi doonaan dhismo casri ah oo laba dabaqa waxaana hadaladoodii kamid ahaa waa aragtaan dhismihiisu nooc uu sameeyay laba buu ka sameeyay yahay magaalada baa ku jirta waa centerkii magaalada uu ku yiraahdo laba saf la afar saf kana saddex saf oo noqda maalinta ayaa banaan idaaradayan ka insha Allah taala waxaan doonaynaa aniga dawladda hoose inaan wadaalayo masaajidka dhismo oo ay ka dhigo masaajid cusub oo casri ah oo shuba doono noqonaya fooq ka insha Allah taala Allah noo safrana kana dadku inay ka qayb qaataan markasta masaajid kasta oo cusub oo la dhisaa laakiin haddii la daryeeli waayo uu dayacmo marka iyadoo ay maamul ahaan garab taaganahay ilaalinta masaajidada in shacbiguna ay ka qayb qaataan inay daryeelaan masaajidada hadday tahay nadaafadiisa iyo hadday tahay bilicdiisa masaajidka magaciisa waxaa xidhay dhismayaal meherada ah waxaan xaaji ka ballan qaadanahay inaan iyana ka remove gareyn doono meesha ka banayn doono si guriga ilaahay uu noqdo halka ugu bilicsan ugu quruxda badan leh ee magaalada halku kaga yaalo waxaan aad ugu mahadnaqayaa baarayaha dekedda oo inta badan lagu yaqaan masaajidada iyo dayactirkoogaba gudoomiyaha degmada oo isna aan ka liidan oo masaajidada iyo wadooyinka qudadooda iyo qayb qaata madaxweyne ku-xigeenka waxa kaloon halkan doonaya inaan kaaga siiyo warbixin yar oo kooban Cabdishakuur iyo maarayuhuba shalay toole waxay soo gaarsiiyeen gaarigii ugu horeeyay ee loogu ballan qaaday booliiska oo qabaar ah agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqaafta Sheekh Salabaan Siciid Cali ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxqabadka ballaaran ee masaajidada ay ka qabteen masaajidka la 13 muu noqonaya masaajidada uu dhisay xaajigu guud uu ka dhisay degmada inta ugu badan marka laga yimaado intuu ka qayb galay gobolada kale dalka dhan ku taala madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa isaguna halkaasi hadallo mahadnaqa uga soo jeediyay maamulka dawladda hoose iyo dekedda waxaana hadaladiisii kamid ahaa مسكين هذا جمهورية رتنا وبحر قرحين هي بلارين تبوا بحر وواحد هذه لو فرحوا فقام لنا رتنا مع بيت إلهي وقرحينه سين قالوا قرحسنا قلاين وقاينا وقرحسنا إن المشي كأنه إن إله بعدنا إن قرحسنا واجب نوع عندي سجرته بحر تنتي واجب كجرته كم هسيهين إن كانوا سودي يقولون ما تأي isbedel ku sameeyay weyn oo dhismo cusub ay ka dhisaan runtii aad iyo aad loo hambaleeyay amarkeeda madaxweynaha haystaan isku xilqaameen bedelaana aad iyo aad loogu hambaleeyna geesta kalena maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa maanta xariga ka jaray wado isku xidhaysa maxjarada xoolaha lagu caafimaadiyo iyo dekedda caalamiga ah ee Berbera taas oo ay mari doonaan xooluhu markay ka dhoofiyaan dekedda Berbera waxaana halkaasi hadallo ay ka soo jeediyeen gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed iyo sidoo kale duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ay ka warameen ahmiyadda ay wadadan u leedahay magaalada Berbera iyagoo sheegay waa wadada maynka ah ee xoolaha dalka ka dhoofa ay dhamaantood maraan 4 milyan oo neef ayaa isticmaala ameen ka badan baa isticmaal doonta Ilaahay ka dhigo waxaan rajaynaynaa imika tan waa hawayaan waa hal wado in mar labaad hadana aan extension ku sameyn doono ilaahay baa mahad leh waa 3 bilood iyo 3 wado waan arkayaa hawsha iyo dadaalka ay ku jiraan dawladda hoose iyo mas'uuliyiinteeduba aad bayna ugu mahadsan yihiin waana shaqadii loo doortay loo igmaday xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera iyo qaar ka mid ah injineerada dhisay wadadaasi oo halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa tilmaamay in wadadan ay tahay mid casri ah isla markaana wax weyn ka tari doonta isu socodka xoolaha ee dhinaca dekedda iyo maxjarada lagu caafimaadiyo marka ay ka yimaadaan gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka Muxtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera